ahaan aad adiguna socdaalkeeda ku timid adiga iyo wafdiga adag waxaad leenahay soo dhow mudane gudoomiye. bismillahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wa sallallahu calaa sayyidina muxammadin wa alihi wasallam ama bacd. maanta oo taariikhdu ay tahay 6 bisha 8 2024 waxaan soo gaarnay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose aniga iyo wafdi aan hogaaminayay oo ka kooban gudoomiye ku-xigeenada gobolka, taliyaha booliska koonfur galbeed ahna taliyaha booliska gobolka Shabeellaha Hoose. safarkeena wuxuu daarnaa in howlgallo iyo shaqooyin ka socday in degmada Walaweyn halkaasi oo dadka shacabka cabashooyin badan laga soo gaaray oo dhanka isbaarooyin yaalay dhankaas iyo Walaweyn khaasatan dhanka duleedka magaalada taasi oo dadka dhibaatooyin badan ay ku qabeen. saan ognahay in waxa degmadani ka dhacday ama se dad isbaaroley ayaa isbaaro waxay u dhigteen dadka gaadiidleyda oo shacabka ahaa kadibna waxaan soo gaartay cabasho ka timid guddiga gaadiidleyda gobolka markay cabashadana soo gaarsiiyeen isla markii tilaabo ayaa laga qaaday ayadoo lala wadaagay in maxkamadda ciidamada qalabka sida oo waaran rasmi ka soo saartay. waarankii ay ka soo saartay maxkamadda ayaa waxaa la amray in hay-adaha amniga qaybahooda kala duwan ee ku sugan degmada Walaweyn in ay tilaabo rasmi ka qaadaan isbaaradaasi wadadaasina ay si dhaqsiya ay ku furaan in hay-adaha amnigii iyo taliyayaasha gutooyinka iyo ururada ee ku sugan in degmada Walaweyn amarkii la siiyey ayadoo laga ambaqaadayo ayaa waxaa dhacday in isbaaradii si dhaqsiya lagu furay ciidamadiina meeshii in isbaarada dhiganayeenna ay si nabada ay dadkii shacabka ay u gudbeen. balse nasiib darro waxaa dhacday in maalintii ku xigtay in mar kale in dadkii loo dhigtay isbaaro oo gaadiidkii ay istaageen kadibna in wasiirkii amniga ee koonfur galbeed oo ku sugnaa degmada ayaa meeshii tagay. markuu tagayna asagii ayaa weerar ugu soo qaaday in isku dhacaas ayaa meesha ka dhacay. in sidaan ognahay in isbaaro xukunkeedu waxa uu yahay mar walbaba in tilaabo rasmi laga qaado maadaama uu go'aan rasmi uu ka soo saaray madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed. madaxweynaha dowladda koonfur galbeed uu amar uu ku baxshay in aan la aqbali karin isbaaro shacabka loo dhiganayo dhibaato shacabka loo geysanayo in marnaba aan la aqbali karin. sidaas lamida in sidaan ognahay in isbaaradan waxay ku timid in nin xildhibaan ah oo mas'uul dowladeed ah mas'uuliyadiisii intuu ka soo tagay ayaa ciidamo wuxuu keenay deegaanka. ciidamadaas oo lagu tilmaamay markoodii koowaad inay yihiin ciidamo in doonayaan in ay qayb ka noqdaan xoreynta deegaanada in gobolka Shabeellaha Hoose. balse sidaan ognahay siyaasadda u degan koonfur galbeed waxa ay tahay in mar walbaba howlgalka la dagaalanka nabadiidka inay hormuudka koowaad ay ka noqonayso dowladda koonfur galbeed. ciidamaduna isbarayaac si aysan u imaanin ay noqdaan ciidamada qaybahooda kala duwan ay ku biirayaan sida daraawiishta koonfur galbeed oo kale in ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed in ciidamada booliska dowladda sidaas oo kale ciidamada militariga SNA waa qayb la yaqaano in ciidamada qaybahooda kala duwan inay ku biirayaan inay waajib ay tahay. ciidankan meesha hadda jooga laakiinse waa ciidamo markoodii hore qayb ka mid ahaayeen kuwa tababar ku qaatay in xeradaan hadeertaan in ay ciidamada military SNA ay degan yihiin qayb ka mid ay tababar ku soo qaateen. qaybtii ayaa gadood waxay ka sameeyeen ciidamadii ay la joogeen ee isla soo tababarteen ayadoo qaybtaasi ay kamid yihiin in taliye ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta ee degmada Walaweyn uu kamid yahay ayaa marka waxaa dhacday in nin odaya xildhibaana uu asagana ciidamo kale uu ka keenay meelo kale inuu ciidankani ku soo daray. sidaasina ay ku dhacday in ciidamada intay isbahaysteen ay isbaaro meesha ay ku dhigteen. isbaaradaasi waa mid annaga aan ka soo horjeedno dowladda koonfur galbeed ay ka soo horjeedo dowladda federaalka ay ka soo horjeedo in maxkamadda ciidamada qalabka sidana ay ka soo saartay maxaa lahaa waaran rasmiya oo cid alaal ciddii ku falkaasi ku lehna in maxkamadaasi ay qabato ciidamadana amar lagu siiyey ciidamada kala duwan ee ciidamada qalabka sida inay ciidamadaasi ay gacan kusoo dhigaan qof walba isbaaradaasi shaqo ku leh amase isbaaradaasi ku yeeshana in asagana lasoo xiri doono ayay maxkamadda ay amar ku bixisay. waxaan anagana sidaas si lamid ah faraynaa hay-adaha kala duwan iyo maxaa lahaa ciidamada kala duwan ee ku sugan degmada Walaweyn inay ciidamadaas tilaabo rasmi ay ka qaadaan. anagana waxaan diyaar u nahay sidii loo soo qaban lahaa ciidamadaasi gadoodka sameeyay iyo kuwa kale ee meeqayna inuu ciidankaasi meeshu ka keeno uu celiyo.
deegaanka qofkii annaga waan soo dhaweynaynaa annaga waxaan mas-uuliyadooda qaadnay waa cid alaale ciddii ku sugan gobolka Shabeellada Hoose min gees ilaa gees laga soo bilaabo siinka dheer ilaa iyo laga gaaro maxaa la dhihi jiray in xuduudda aan la leenahay gobolka Baay ama se degmada Buurhakaba ilaa iyo Kuyibaru iyo Baraawe laga gaaro intaasoo dhan mas-uuliyadoodaana saaran cid walbo degan oo shacaba qabiil aan anagoon u fiirnaynin anagoo aan u fiirnayn reerkay ka dhasheen anagoo aan u fiirnayn wax alaale waxay yihiinba waa mas-uuliyadna wada saaran qofka shacabka ee deegaanadaasi degan mas-uuliyadiisaana saaran wax la yiraahdo qabiil ama se wax la yiraahdo reer gooniyo lagu duulaan lagu yahay ama reer gooniyo dhibaato loo geysan karo cid aan ka aqbalayn taas ma ay jirto laakiin in qof koox group soo duulaan ee isbaaro dhex dhigtaan gobolka Shabeellada Hoose kadibna ay sheegtaan waliba dadka qaarkood tilaabooyin iyo waxyaabo aan loo dul qaadan karin oo maamul kala sameeynayna iyo waxaan sameeynayna maamul goboleed kale iyo waxaan sameeynayna isbahaysi kale taas waxaan ka aqbali karnaa maaha gobolkan mas'uuliyadiisa annagana saaran tahay dowladda koonfur galbeed ee mas'uuliyadeeda saaran tahay waxaan soo jeedinaynaa madaxda ugu sareysa dalka oo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo madaxweynaha federaalka intaba ay annaga amar nagu siiyeen in isbaaro aan la aqbali karin meel kasto meelshay ka timaado haddana mar kale waxaan ka dalbanaynaa inay garab nagu siiyaan ciddii isbaaro dhigato oo dadkaasi dhibaato u geysanaysa shacabka lacag ka qaadanaysa wax alaal waxay ahaataba inay annaga garab nagu siiyaan inaan ka xoreyno diyaanka dadkan aan ka qabano aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله وكفى سلام الله عليكم خيار ميل والبود الدنيا دا كجوكتان أروريا صوبا صباح وناكسن ليبانا ولا ليال عدكا دقيستين وقدونك قبل كشابي لذا هوسي استيت كميلان جيسيغا هل أذيق له أقوين يهنكا قلن يرضى مادي يديني إلهي سقود داري محمد إبراهيم بري warka lama warwareejiyo dardaarankii madaxweyne lafta gareen dhaartii uu maray baa socota 20 sano anoo jira ayaan isbaara diiday wallaahi 50 sano anoo jira maantay isbaara ma ogolaan doono hadalkaasi rooble kaliya looma sheegin waxaa loo sheegay wixii isbaara dhiganayo dhan isbaaro waa lala dagaalamayaa go-aankaasi lagama labaynayo lamana dhigan karo isbaaro iyo aqbari weyne Shabeellada Hoose Baay Bakool iyo jubbooyinku aan gaari doono iyo gada intaba stateka Maryland go-aankaasuu qaatay ama qabiil sheego ama koox sheego ama urur sheego ama dowlad kala sheego kabaha ayaa lagula dulmarayaa xabadda ayaa dabada laga gelinaya isbaaristayaasha aniga ma dhihin dowladda Maryland baa leh meesha dowlad baa ka talisoo ka dhisan okay dadkii qabiilka ku doodayay oo dhahayay reer hebel hawiye gaal jecel saasaa duulaan lagu yahay warkooda wuu soo afjarmay dowladda Maryland waxay tiri qofkii shacab oo meeshaan degan annagaa ka mas-uula ammaankiisi warka macadiya waa Puntland oo kale oo intay idaacadda soo istaagtay oo leh wixii Soomaali oo nala degan annaga ayaa amnigooda mas-uulka ah cashuurtana way bixinayaan wayna ganacsan karaan xitaa way tartami karaan laakiin iyagoo shacab ah ma aragtaa dariiqa ay soo martay dowladda Maryland يعني checkpoint يدي لدقي قبيالتين وانا لقو سو دوليي رحويني زمي هويو زمو قال جعلي زمو حسنا ولا صاف جرى سيستم كالدولي وكأود بدي هي شاكا قبلي او معني الظلمي كل سنة ولا يسو كاني وردوغان كان وحي الدقن شعبك مسؤولية دودة انا جاي نسارن تهي تصالي دالك هولن ايو باسبور كايستا دايرة مين جيسو هولن وما دالانين لكن قحوتيو كوي مادي صومان مركو عكتا سوغليي امنيجيسو ولا دمانات قاضي سيداس او كاله دادك ديجل ايه مرفلي هدي قلمودوك اي چانتا ديغان امنيجو دو waxaa ka masuula de state kaas
waxayna u hoggaansamayaan shuruucda meeshaasi taalla hadday tahay amni ka shaqaynta hadday tahay cashuur dhiibista hadday tahay ku noolaanshaha sidaas waay marka ninka hawiye isaguna sidaasuu ugu noolaan karaa gobolka shabeellada hoose iyo guud ahaan stateka Maryland marka dowladda Maryland gebi ahaanba waxay soo afjartay yacni annaga reer hebel haddaan nahay duulaanaana lagu yahay iyo waxaasoo dhan waa la soo afjaray maxaa lagu soo afjaray meeshaan shacab baa tahay haddaad degan tahay annagaa kaa mas-uula cid kugu xadgudbi kartaa ma jirto qabiil laguma bursanaayo nidaam baad u noolaanaysaa sharciga dalka ayaad u hoggaansamaysaa stateka haddii ammaankaaga la sugaayana qori ma soo qaadan kartid waa in qori la soo qaataa annagaa qoriga leh adigu ammaankaagaa la sugi shacab baad ahaanaysaa dowladda Maryland saasay ku soo afjartay isbaarana lagama gorgortama karay dhahday walaa xasan sheekh maxamuud walaa dowladdiisii walaa ma arkaysa macnaha hawiye walaa siyaasiyiin walaa qof laga yeelaayo male amar buuxaana lagu bixiyay in dabada xabadda laga geliyo amiin jeesow shaqaalaada ay awalba xasan sheekhi ku soo diray haddana isagiyaa macnaha laba wajiilaynayo leh reer Marylandow dabada ka soo geliya isbaarada xasan muxuu ku qabtay war fiiri xasan sheekh maxamuud 9 qof oo isku dhex jirta waa ma awoodi karo inuu maanta ka dagaalamo stateka Maryland laakiin uu jeclaan lahaa xasan isagaa ku dhahaaya macnaha daayir amiin jeesow reerkaaga abaabul saas samee ma arkaysa macnaha wiyow kaca isagaa dhahaaya haddana marka dabada xabadda lagaa geliyo isla xasanaa dhahaaya lafta gareenow guddoomiyow ku wada isbaaro ma ogolin anay isumcad xumaynayaan maxaa yeelay xasan amarkaas wuxuu soo dhiibayaa marka saldhigaasi la taabtay oo loo socdo bahasha inay ballaaranayso oo ogaaday bas sheekadu way xumaatay ilaan meel kaloo fara lagu hayo male hadda ma fahmaysaa marka walaalayaal horta ma arkaysa isbaarada dowladda Maryland iyo lafta garen meeshaasay ka istaageen hadday dhaheen koraan u dhahaynaa lafta macnihi dowladda Marylandna microphone ay ku dhahday microphone kor samadana waa laga maqlay isbaaro maya waxaan rabnaa inaan ogaano isbaaradan meeshaan la dhigtay yaa horseeday ma hawiyaa horseeday mise Digli Mirifle guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose codkiisii waxaanu ka baranay caawa ama maantay isbaaradan kuma dhiiradeen dadka mooryaanta hawiyaha ee dhigtay isbaaradan waxaa horseeday Digli iyo Mirifle yacni cudur aan Digli iyo Mirifle isu keenin horta macnaheed Digli iyo Mirifle kuma dhacaayo ogaada dadkan waa dad tiro badan waa dad hubaysan laakiin iyaga ayaa isjabiya isbaaradan ayaa keenay isbaarada waxaa keenay niman u dhashay Digli aw Mirifle gaar ahaan degmada daafeed ka soo jeeda oo baxay gadooday meeshaasi tagay waayaa la yidhi oo qaarkood ciidamada dowladda sheeganahay fiiriya ayaa isbaaro dhigtay ninkaana markaasuu ku soo dhiiriday daahir amiin jeesow haddaba sidaasuu ku tagay baa lagu yidhi marka deegaanka ayaa marka hore isbaarada horseeday iyagaana hadda ka cabaadaya iyagaa dhigtay sidaasaan ka fahmi karaa say u dhigteen ayaan dhaweyd markii dagaalada Bardaale iyo Diinsoor iyo Qasax Dheere iyo meel walba iyo Qoryooley iyo Baraawo laga abaabulayay wala weyn dagaaladaas waa laga abaabulay dagaaladan macnaheed hadda hawiyaha qaylinaya waxaa ka horeeyay niman Digli Mirifle soo qaylay xamar laga soo qaylisiyay isla kuwaasi deegaanka dadka u dhashay Shilimaan la soo siiyay dhalinyarada ay la hadleen ma arkaysa macnaheed ordaha duurka gala maamulka la dagaalamay dhaheen laakiin ma arkaysa naag xanaaqday oo dabadeed u xanaaqday oo kale noqdeen maxay qof baxay oo hooyadiis isbaaro in loo dhigto horseeday noqdeen oo ilmihiisa caana laga gooyay markay meeshaasi tageen hawiye lacagta soo siiyay ciidan ay ku darsadeen iyagiiba la baloogayba waa ka ma arkaysa lagala wareegay marka horta isbaarada Digli aw Mirifle horseeday sida aan anigu u fahmay macnaheed hadalka meeshaan marka Digli Mirifle waxaan u sheegayaa war Puntland ku daysada
oo macnaheedu iyagoo ishaya dani soo celiyay si ay u wada badbaadaan yani siyaasad